ورحمة الله وبركاته نعشق سردو هذا مالك استرجع تاني والله لها يقال يا سومالي إن شاء الله أنا وحنا هالشيء أنا لك سيدا الجدوار حافي ما تقوى ما شاء الله هذه كانوا هذه رجينا إن شاء الله أنا حافي ما تقبطن يعني سردو هذا مالك استرجع تاني midda kale waxaan kaloo diga codsanaya barnaamijkan sii saar karaya saxaafta Soomaali weyn meel kasta aad joogteen waa sheekooyinka iska caadiga ahay ayaan maanta ka sheekay doonaa maasha Allah way kala xiran tahay waa okay xaaladu adinkana waxaan rajaynaa sidoo kale inaad xaaladiina iyo amuurihiina is okay inay yihiin ayaan idin rajaynayaa mar labaad iyo mar saddexaad waad mahadsantihiin sida aad maaragtay ii dhiirigelisaan marka aniguna halkaan waxaan fahmayaa ama garanayaan diiga soo siinayaa aan wadna dee howsha hore usii wado sii shoot gareeya barnaamijka waxaan kaa codsanaya marka midda kale scrap sorry committee ka soo bixi waxay adig kula tahay adeer waa kaatee waxaweye waa adduunyada dadka way kala baadeen way kala tageen waxaad arkaysaa walaahi waa calool xanuun dad isla dhashtay oo israadinayo isbaafinayo gabdho yaryaroo raadinayo hooyadood wax badan kuwa intaana yani dadka kala dhumayna waan u ducaynaya waxaan leeyahay ilaahay si sahlan dadka kala maqan ilaahay isku keeno oo maaragtay dadka walaalahood ka maqan yahay dadka waalidiintu ka maqan yihiin ilaahay si fudud iskugu keeno waxaan arkayaa hadda gabar yar adiga 13 sano meelahaas 14 sano hooyadad baafinayso dabcan والله waa yani wax laga murugoodo hooyadii waqti hore ay u dambaysay tiray marka amuraha la sahlo Soomaaliya meel ka soo joogtaan dadku way qaar baa iskaga tahriibay Sacuudi Carabiya qaar baa Yurub soo aaday qaar baa Afrikadaas galay sidaas ay dadkii isku wada waayeen marka qaar baa wax waa dhinteen inta badan waa nool yihiin dadkii meel ay dadkoodii ku sheegaan ma jirto wallahi waa iska dhib wayn marka waxa loo baahan yahay mar walba laakiin marba haddaad waddanka ka tagto meeshaad tagto ilaahay kugu ammaanso inaad dadkii iyo raadiso telefoonadooda haddaad haynin haatee aad ka soo hadasho meelaha laga hadlo tiraadi war dadkaasaa iga maqan kabacdi dadku way ku arkaan way soo hadlayaan marka dadka dee maqanow oo sida arkay aniga loo ilmi u dadayaan maaragtay walaalay u dadayaan war ka soo hadla meelaha iyo ilaahay ka baqaynayo hore u socdo hore socod maliyiinayo dadka la hadlo ilmiina idraadinaya la hadlo dadkiina dhaxgalo waa sidaa dee baashu niyo waa waxay dadka kadii laga soo wadanka la taga gadaal ma la inkira allah waana gadaalna ku xirnaato dadkii iyo saacadii tiraaho hawsha kala wado la sheekaysato meel walbo ilmi adigu baafiyaan gawar adiga dhibaato maano ilmaha dhashay ku baafiyaan gawar soo dhibaato ma dhibaato soo dhawaada waan ogahay aniga Soomaalidu way tahriib badan tahay wallahi cid Soomaali ka tahriib ma jirto siib gabdhuhu way cabsan jireen gabdhaha Soomaali ma cabsadaan boolaya midaan ka yaabana ma cabsadaan tahriib qabba min Soomaaliya ilaa Yurub gabar waxaad arkaysaa soconayso cid la socota inay jirto Sacuudi Carabiga ku tahriibay sidoo kale doonay dalaq iskaliin warka jooga war wallahi billahi ta'ala way dib badan tahay wala ilaahay amaansada wala leeyahay intii soconayso waxa ku roon nimanka ku roon gabdhuhu dhul dega joojiya wadankii nabad u noqday gobol kasta waa degan yahay caasimadu waa degan tahay meel kasta way degan tahay war xaalis ka dhigay suuqa baltimaa shalaysta ya kaasha tutusiste war joojiya ilaahay ka baqa xalsan saa waxa igu leeyahay war guriyiina jooga oo Soomaaliya تميني شالايستو ده ميدا كنت تاني واهلي سان إن شاء الله علمي هنا كنت تاني علمي على رجال وقتي والله ودي بطع على الحنون
walaalaha meel kastoo aad joogtaan waxaad ii jecelahay ilaahay dartii insha allahu tacaala waxaan rajaynaa sida hore idigu sheegayba horta sideedaba horta ducadu waa muhiim in la isku duceeyaana waa shay qaaliya waana shay muhiima dadkaa dadku ka maqan yahay ha loo soo duceeyo si dadkoodii u helaan walaa mararka qaarkood meelo markaa fiirsata aday caloosha dhan ku gadoomayso caloosha ayaa ku gadoomayso yani sidii dadka ilmaha qaarkood ay u hadlaan oo raadinaya waalidkood yani caloosha ku gadoomayso marka waalidiinta ilmihiina la hadla ilmihiina la hadla waa xanuun gabarku raadinayso oo igama saan waay xanuun والله حرام marka insha Allah in gabadhaas heli doonto hooyadeeda ayaa u rajaynayaa farxad la qaadan doonto waqti dhow mid kale warxay dhanimo ilaahay naga xijaabay baalkii dadkii kala taagay oxygen-ka la isku xiraayeen adduunkii uu ku soo batay ilaahay maaragtay dadka ka qabto waa cabaad iyo qayla la taagan yahay magaalooyinka hadda aniga aan degannahay xaaladoodu ma fiicno xaaladoodu waa bariga dhexo gobolka hadda aniga aan joogo dad badanaa la jiifo gobol kale nagu dhegan oo halkaana waa lama tagaan waayo waaba la karantiilayba yaa la tegin gobolkaasaa la taagan yahay gobolka ayaa la tegin gobolkaasa dhahay dadka gobolka degan waa oga wax badan oo laga marmi karinaa jirno dadku inay aadayaan kasoo adeeganayaan wax kasoo gadanayaan taas waa wax sharciga ka yaala marka ilaahay ka xijaab dhinaca ilaaha naga wada qaadsiiyo gaal iyo muslimba waa ku noolnahay meesha waa ku wada nool yihiin ilaahay dhinaca naga wada qaadsiiyo waxaasniyo waa gaalkii hadduu kusoo dhaco kusoo agmaraa waa la isku dhaaftay intaas haaga usha hadduu yidha waa kusoo gaari qafka islaamka hadduu kusoo dhaco hadee islaamkii salaamu calaykum waa salaantu waa taagan tahay ilaahay maaragtay bal hanaga qabto waxaa bal ilaahay dhinaca naga marsiiyad bal soomaaliya dad meelaha fiyow joogo noo soo duceeya bal ilaahay ka baqaa bal niyo ducadu waa laga maarmaan horaan idigu sheegay aniga midda kale waaba iska dawaafa ama ciyaalka habal celi kareen boqowaaba janta fagaxba iskuule aadaan intay ka baxa meel kusoo sheekayaan aadaan waxa waaye waa sidii hergebkiioo kale baan sidii hergebkiioo kale waaye waa hergeb laa kuu iman war maxaa kugu dhac hergebaa igu dhac cudurkii kale hadduu doono jiro marka guryaha dhexdooda ina mar dhow shabaq lagu dhisa u malaynaya ilmaa la yiraahda anigu ni qof weyna oo baalka hadduu ugu dhaco anigu layla soo rugi maaha markaa magaalada ka timaado shabaqaasaa noo dhexeeye nigu qolkaagu luuqaas uu jiraayo shabaqaas ha soo gudbin xagga ka jiira qof walba qolkeeda ah waayeeladuna qol kale shabaq ku dhigtaan wallahi billahi tala waa la yaabay waa baal arlis la soo rogay badoo ku dhaca bismillaahir rahmaanir rahiim yaasinkiyo والله waa dhibaato wallahi waa dhibaato weyn waay dhibaato aad iyo aad u weyn waay waa ogtiis adiga 7 bilood ka hor waa weyn dhibaatadu marka oo dadka caalamka oo dhan ya si caadi ah oo dadku u laa marka hore ilaahay naga bixiyo ilaahay dhinaca naga marsiiyo looma adkaysan kara kaas dad badan oo ayuu kula hadlaaya daqiiqada ka bacdi neefta ku dhegta aragnay lala ordo isbitaal la geeyey isbitaalkii saacado ku jiro kadib la yiri no oxygenkii waa inuu dhintaa ka tan weynaatay marka oxygen xaba ma celi karaa qof naf ka baxaysa oxygen ma celi karaa ilaahay qaatumada noo suubi ilaahay qaatumada noo suubi انت كنت عايز واحد في عنا ما لا قاطمه يسوب قاطمه ما في يعني يواجد وقف كل نفط مركي كبحي سوء شهادنا الهي يدي يا قرانك اقرنا الهي يدي واحد في حنا من جنان ما شاء الله تبارك الله ان
adduunyadan waa loo soo dhigto xumaantu markay ku badantay iyo waqsiga iyo alla ka cabsi la'aanta waxaa lagu soo fardahay cudur hergeb aad moodo markuu kugu dhacana dadka inta badan lalala soo gedine naftu horay u hagaagsaniyo yarna ilaahba caafimaad siinayo allow intii oonsana ku dhicin cudurka oo markasta caafimaad qabda allow nudar amiin amiin intii islaama muslimka oo dhanna cudurka dhinac ka marsi muslimku waa isku wada mide way isku danqadaan oo waa isku jirnaxaa muslimku waa walaale alla cudurkan caalamka waay islaamkoo dhan dhinac ka marsi rabo adan ku baryaa war aamiin noo dhaha aamiin dhaha aamiin dhaha insha allahu tacaala waxaan iiga tagayaa caafimaad cimri dheeri sharaf wanaag raarayn kuna salliya nabi allahuma salli calaa sayidina